قدوميها برلمانك وزيرك عافماتك وزيرك هوري عافماتك حسين ما شاء الله مرتي شرفته المودينك شيخي حربك دوافيي ياسين عرب هذا كله مريسا عبد الرزاق وبكيجي ضمان واحد بسلام يا سلام سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا من اسكندرية but I'll speak in Somali وحا فرحت ويني يا دكتور قبوسة وحا لشقين جري برنا أرك عفمات كتوغي sideetankii sagaaliyo sideetankii markaan kormeer ugu imaado wasaaradda caafimaadka ee xamar isagaa wasiir ku-xigeen caafimaadka kartidiisa iyo maxaan ku aqoontiisu berigaas ayay noo muuqatay ilaahay noo kaa soo celiyey ee Soomaaliland noo kaa soo celiyey ayaa mahadaale waxa islaamaha umulisooyinka waliba carabka madow ducadoodu way kacdaa islaan carab madow umulisa ana waana in badan baan madheer kulul sacabadeeda ku qabtay maalintii aan cisbitaalka aan ku dambaabo furayay wasiir caafimaad baa ahayd baan malaynayaa wasiir xasan waxaan ku ducaystay in ilaahay ummadayda garansiiyo inay hanti u quuraan caafimaadka samadaha furnayd baan malaynayaa waa ka ilaahay xarumo badan oo caafimaad maanta furay magaalo walbana aad ugu tegayso cisbitaallo midba midka ka dambeeya uu ka sii casriyeysnay in xaashi waxaan odhanayaa malaa berigii 62kii ama cali qaadi baa ku tolay ama anigaa ku tolay ama yaasiin carab aabihii baa ku tolay aabihiiba saxda midun baa ku toli lahaa caafimaadku wax laga ganacsado maaha anigu cisbitaalkaygu maanta wuxuu furnaa 17 sanadood buu ku dhow yahay ilaa iminka anigaa biilaya xalay baa ugu dambeysay ilmo yar baa noo dhashay abuurta ilaahay way iska fara badan tahay mid faruuran baa kuu dhasha mid xanguluhu dhabar ka soo jeedaa kuu dhalan mid luguhu qaloocan baa kuu dhalan mid nool baa kuu dhalan mid mayd baa mayd ku soo dhalan ilaahay abuurtiisa ilmaa noo dhashay xiidmuhu bannaanka yaalan waxa aan xidhmin xubnihii ama hilibkii ama haraggii uurku jirta dabooli lahaa xuub baa xiidmuhu bannaanka yaalan xiidmuhuna waa xuub way qalalaan marka bannaanka loo soo saaro way qalalayaan waxay u baahdaan si degdega halkii ay ku habboonaayeen dib loogu celiyo ilmaha dhalay aabihii waa ardayo meel ku maqaya dal dabadaabu ku maqaya islaamii baa ordaya waxay yaa saxeexaya deeragooyanaku waa arday kan waa sida saacadduna way nagu socotaa ehel baa la soo helay dee kharashkii kharash yaa ku weydiiyey saacad bay nagu socotaa adna waxaad dhashay mid bay ilmaha hooyadii iyo aabihii mid bay dhashay anna kanaan dhalay isbitaalkayga ku dhashay anaa kharashkiisa bixinay ilaahay khayr ka siiyo dr saleebaan cabdi guuleed baan ugu yeedhnay saaka markaan soo baxayay wuu wanaagsanaa waa ilmihii 6, 7, 16 sanadood oo calaamadaa ku dhasha kuwii hore way kaceen alxamdulilah ilaahayna waxaan ka baryayaa ood noogu ducaysaa
ilaahay kaayarna aabihiina ardayga islaama yaryarnay daba joogaan ilaahay caafimaad isagana siiyo oo isagoo caafimaad qaba ammaanadiisaas ilaahay uu naga wareejiyo waxaan u socdaa horta aad baan kuugu mahadnaqayaa fikraddaa wanaagsan ubad badan oo meeshan joogana in badan baan ku arkay ubadkaygii qaar badan baa meeshan jooga cabdirasaaq damiyaan idhaahdaa ma odhan kara imika waa guddoomiyey warka caafimaadka laakiin dad badan baa isoo maray iyo shaqaalaha kale kuu shaqeeya tababarka maxaa keenay markii cisbitaalkayga uu diyaar ahaa ee daartu dhammaatay ayaa waxaan isweydiiyey ba intaanay daartuba dhammaanin ayaan haddii ilaahay daartaa dhammeeyo oo ay berito istaagto ood qalab u hesho ilin daartu daweyn maysee gacmihii iyo farsamadii iyo cilmigii dadkan buka wax loogu qaban lahaa horta xagay ka imanayaan waan baahiyey shaqaalaha maxaa jooga shaqaalihii aan rabay aqoontoodu inay heer gaadhsanaan ama mid iyo laba meelo ka shaqeeya mooye waan waayay waxaanu markaa aanu go-aansanay weli manhajka saxiixaagii baa ku yaalla wasiir inaan horta bal manhajkii lagu tababar lahaa shaqaale caafimaadka aanu samayno waxaan markaan ururka caafimaadka joogay intaanan jabuuti iman waxaan madax u ahaa tababarada gobolka carabta oo dhan markaa manaahijtooda oo dhan anigaa saxi jiray qaar badan koobiyaan ka hayay rekoordka way ku jiraan intuba waxay ahaayeen manaahij dalal kale loogu talagalay oo dal walbaba wuxuu ku saleeyaa manhajka shaqaalaha iyo baahida dalkiisaas mid noo cuntaba waan ka weyn maxaa kii Soomaaliya oo aanu haynin waxaan noqonaa manhaj dejino bil ayaan library-gayga meel xafiisa ayaan afduub intii cilmi tiqiinay caafimaad bil baan ugu haynay manhajkii ka soo baxay wasaaraddii markaa u gudbinay wasaaraddii baa haddana sii shaandhaysay sii eegtay lasii kala hagaajiyey dabadaanu u diray talooyin baa ka yimid markii la fadhiisiiyey la yidhi kaasaa haddaba u cuntamaya Soomaaliland ayaa wasaaraddu saxeexay halkii aanu ku bilownay tababarada halkaanu ku tababarka ku bilownay jaajuur qol la dhisayo daartoo la dhisayo ayaanu jaajuurka simirka ay ku fadhiisin jireen waxaa maalin noo yimid xaaji cabdiraxmaan mansuur maxamed xaashi markaasaad fadhida cabdilqaadir oo walaalkii maxamed xaashi cilmi cisbitaalka ii dhisi jiray ii dhisayay ayaa xaaji cabdilqaadir noo yimid jaajuur ay ku fadhiyaan oo ay biyo iskaga rusheeyaan dhulka siigada simirka aroortii buu ayuu arkay 40 kursi iyo 40 miis ee ardaydii aan ku tababaray xaajigaas ay siiyey intaas oo kun intaas oo boqol oo arday ayaa kuraasidii iyo miisaskii lagu tababaray qaarna weli waa sii nool yihiin ilaahay baa ka abaalmaray dad badan baa iga gacan qabtay cisbitaalkaas dad badan mid simir siiya dhagax siiya mid gaadiid siiya iska rodaya ku shaqayso saaqaalaha ku shaqayso halkaasaan ku soo gaaray halkaasaan cisbitaalka aan ku soo gaaray intaa waxaa la ii haystaa qof waala kulley waan ahay qof walba kulley dhibirdi waan ku imanayaa astaghfirullah horta kulley waa inay kugu jirtaa waxoogay waalii waa inay kugu jirtaa waayo markaad aragto wax adag oo dhib badan oo haddana u badheedho waa inaad horta kulley waxoogay indhala-aana iyo waxoogay maaragta waa inay kugu jirtaa adayg baan markaa kusoo gaarsiiyey maalin dhaweyd waxaan ugu mahmaahayay qaar waxay markaan halkan markaan waddanka idiin imanayay
أنا محوجي جنبوين كهيga idinla imanayay waxaan ahaa nooca Mercedes ka ugu dambeeya nooc weeyaan ka taloogyada iibkano saan jiray kaasan doonaya ma ka iga dan markaas warshadu iigu sameyn jiray noocaan rabo injiinkaan rabo midabkaan rabo quwadaan rabo midabka kii waan iibiyay waxaan ku soo degay haddana Land Cruiser isna warshadu ay samayso dana waan ka soo dego midaan macradka Dubai ka iibsado haddana waan ka soo dego second hand suuqeena ayaan imika waxaan marayaa gaar malaha waa ka labaad mid saddexaad ma hondraan maraya oo waliba haddii dahabshiil halkan cidi ka joogto aan ugu mahadnaqayo inaan haafto ku qaato birna katalog baan Mercedes ku iibsan jiray maantana haafto ayaan Honda ku iibsadaa laakiin maantaan ka taajirsanahay beriga aan katalogga aan ka dalban jiray maantaan ka taajirsanahay hay'ad xalay taabo ugu dambeeyay alxamdulillah marmarka jaamacadda teleson baa ay dhigtay waa kan ina maxamedi من طبق إلى طبق من طبق إلى طبق والله يقدر إلهي بك أبا المرض هوش كسوة إسلامي يرهوي لكن أبدا يكاب بتشنا معاش كهلا ميسي وان هو وحتى عدد أو أكثر نما يدوين أن يسترك أولس كهلا ميسي معاش بالبنك أو بنتو كهلا ميسي لكن سبانك إلهي باب بتاعي بنك إلهي أي بتاعي إلهي حقول قبته إلهي أنت كوسو ما كنكشا إلهي عاف ما تقول لها كسي إلهي كسي هو مجن قفك بكين وسوكلا وإنه مجن وحن كلو مثال إنسان يا قلنا اللابك قلنا اللابك يقول أنت عشان كاسيكو بلابه لحية توم ببريقات أو بس وهي اللاب يقشقين لها بجري لحية تومكي وقاسي ترمي كون كل شقية هو يصير تعبري بكميتي قارن ده بدها هسيك مغين وحن كلو دكتور حسين حوق وحن نقبضتي ورث فارمشياش بين نقبضتي وحلا لو وحي للدون أي dadka laga iibiyaa wixii la doonaa la soo dejiyaa waxa ku qoran dawladda kuma jira waxa laga yaabaa in yar ida jirto waxaanu markaa aanu ka wada hadal in licensing loo sameeyo oo qof walba aanu furan karin meel uu ku dhajiyo magac uu waa pharmacy waxa wasaaradda laga dalbatay inaanu tababar farmasiga bilowno oo marka aanu number la soo gaarsiiyo inta badan marka sharciga la soo dejiyo oo la yaa farmasiga yaa dukaankan iibinaya dooskii ma garanaya contraindications kii ma garanaya maxaan ku reactions kii keenaysa mode of administration kii ma garanaya dawada adigoo u soo qoray waxaan qoray intramuscular u soo qoray ay islaan yar farmasi tagaysa markaas la ka wal kuma markaas oo ay suuqa qaabaya gacanta bay kaga mud xididka looguma tala galin dawada way seenayaan way ka seenayaan ma garanayo halista ay leedahay islaantii oo gacantii barartay oo gooyin sigatay ayaa lagu keenaya halkaas aan farmasiyaashana ka bilownay inaan tababarkooda aan u bilowno وأنا كبروني certificate وأنا كحكسي لي level كودي diploma وين أي BSc جي وضع post graduate إنه يسميانه ولوبهي radiology جيبا يمد MRI CT scan X-ray أنتم هو radioactive سببت ينوغي يبلا هو radium باي وضع radioactive waxay kaaga baahan yihiin daartii inaad insulation ku samayso lead insulation ku samayso apron kii qofka xidho iska badbaadiyo
laboratory maxaan ku dhahay diagnostic imaging waxaa loogu baahan yahay horta diagnostic bay ku sahlaysaa laakiinse waa inuu safe noqonaada qofkii la saaraya ka saarayana ay safe u noqoto makiinadina warbixintan ay ku siinaysaa ay tahay mid saxa aniga x-rayga imika waxaa ii haya mid yaroo markaan cisbitaalka dhisayay aanu u bixinay ubaxle wuu yaraayo ilmo yar buu ahaa marka wufuuti noo imanayso ayaanu u dhiibi jirnay ubaxan u jirnay si wafdiga si inankaa berigaa ubaxle aanu u bixinay ubaxa bixin jiray ayaa markii dambe tababaro qaatay isagaa maanta noo haya takhasusna imika haddana dib buu u noqonaya wuxuu soo baxay ubaxle qof u soo jeeda farsamadii garanaya oo looga yeedho meelaha kale marmar ayaa looga yeedha marka taan uga jeedaa waxa weeye gacanteenaasaynu ku samaysanayna tababarka dhakhaatiirta maxaan u bilaabay in badan baan kasoo horjeeda arday badan baana soo marta sinu lagu garanayaa waxay noogu soo maray internship bay noogu soo mari jireen arday badan oo wanaagsan wayna soo marta 4th year 5th year medical students last year medical students oo wanaagsan baana soo mari jiray marmar baad arkaysaa qaar aan istaahil magacaas wixiina way bateen farsamadii way sii kala daadatay waxay markaa noqoteen okay we will do it laakiinse we will do it properly 16 arday baan ayaana soo doontay oo A ku wada pass gareeyay secondary school imtixaan baanu ka qaadnay 42 ugu sarreeyay baanu 1 year sanad aanu siinay tababarkii looga baahnaa inay secondary ka soo qaataan hadday tahay biology chemistry anatomy maxaan ku idhahaya physics hadday tahay maxaan ku idhaha wixii subjectskii ay u baahnaayeen ayaanu 1 year ka foundation siinay iyo discipline-kooda waayo qofkaa berito dhakhtarka noqonaya waa inuu hadaa qof hanaanka caafimaad u jajaban oo berito haybadii iyo mas-uuliyaddii dhakhtar qaadi kara 42 markaanu sanad siinay baan haddana imtixaan kale ka qaadnay waa 0 year wax la yidhaahdo 20 ugu sarreeyey ayaa loo bilaabay imika 3rd year bay marayaan waxaanu rajaynaynaa oonu ku dadaalayna ilaahayna ka baryaynaa inuu naga qabto inay noqdaan dhakhaatiirta tababarada ugu fiican qaadata in ilaahay ka dhigo oo ay ummadda aanu ku soo dayno ay ka heli doonaan mas-uuliyaddii iyo tababarkii iyo cilmigii looga baahnaa aad baan kuu salaamaya I thank you all very much for coming to our country, Somaliland, working with us, teaching our students, treating our patients, and leading the way for better medical care. This is my son. I will be your grandmother. I'm happy to collaborate with you and ready to collaborate with you the same way that we do International Hospital. Doctor, I'm sorry, I missed seeing you. And my doctor here, I am fine, I'm better. Thank you. Allah yakhalik. wayna wada shaqaynayna dhakhaatiirta kaleba u wada shaqayno diyaar baan ku lahay hooyo anaa ku baahan ku iman doona shaqaalahayga ku baahan ku iman doona aniga wixii aad nooga baahato taxta amra ilaahay caafimaad iyo cimri dheer baan kaaga baryayaa ilaahay Somaliland horumarkaas aynu gaadhnay ee dad kale gaari kara waaye ilaahay haynagu garab galo halkaa hayna gaadhsiiyo jamaal caydiid meesha aan istaabka ka dhisay ku dambaabo raggii igu dhiiriyay buu ahaa aad baad mahadsantahay abaalkeed waan hayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu